Qalliimada lagu sameeyo burooyinka halista ah ayaan inta badan kalsooni loogu qabi jirin dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo goobahooda caafimaadka, balse waxaa marqaatimo doonta ah in isbedel weyn ay muddooyinkan sameynayeen bahda caafimaadka ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho. Dhaqaatiirta da'da yar ee ka howlgashay isbitaalka Muqdisho City Hospital oo badankood sita takhasusyo jaamacadeed oo dibadda ah ayaa markii ugu horeysay ku guuleystay buro uu miisaankeedu aad u cuslaa taas oo caloosha kaga taalay hooyo Soomaaliyeed. Maka Aadan Maxamed oo ka timid degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan ayay dhaqaatiirta Muqdisho City Hospital sheegeen inay muddo 2 sano la dhibanayd buradan oo culays badan ku haysay xidmaheeda. Dr. Maxamed Mukhtaar Xuseen Boolay iyo Dr. Diriye oo fuliyay qalliinkan caloosha looga sameeyay hooyadan Soomaaliyeed ee danyarta ah ayaa sheegay in wax fudud aysan ahayn in lagu guuleysto qalliinkan oo kale. maamadu waxay la xanuunsanayd buro weyn oo caloosha uga taashay muddo 2 sano ah. Alxamdulillah meelo badan ay tagtay sida ay noo sheegtay in burada aan laga soo sheegin. Alxamdulillah markaan aragnay ayadoo buradaas la dhibaataysanna waxaan ku qaabilnay isbitaalka baaritaan kadib waxaan ogaanay inay ku jirto buro caloosheeda solid iyo liquid isku ah oo buro oo biyood iyo mid intaba. Marka alxamdulillah maamada waa kaas qalliinkeeda waxaan u sameynay 16 bishii 3 2021 maantana waa 24 bishii 3 2021. Alxamdulillah maamaka aad ay u fiican tahay. haddana maanta waxaan halkan u fadhinaa inaan ka fasaxno isbitaalka ayadoo aad u fiican alxamdulillah nabad qabto caafimaadkeeda taam uu yahay ilaaha caafimaadka bixiyo dadaal dheer kadib alxamdulillah waqtigan ay ku qorneed in qalliinkeedii iyo howlaheedii loo fuliyo. waxaan uga faa'iideysanayaa marka waxaa jiro bukaanno sidaas oo kale ah oo badan oo runtii waqti badan looga dhumiyo waxyaabo kale oo aan munaasab ahayn macnaha lagu sheego cudurkiisiina aan shaqo ku lahayn qofka kadibna ay gaarto in macna qofka wax laga qaban waayo uu gaaro heer mesela ama burooyinka isku bedelaan kansar isku bedelaan ama waxba aan laga qaban karin inay isku bedelaan. Marka waqtigaas oo kale inta qofka la gaarsiin lahaa waxa haboon macna in waqti hore qofka qalliinka uu sameeyo ama uu la tashado qofka macna hawsha shaqada kule takhasuska kule dhakhtar ku haboon inuu u tago taladiisana uu qaato. Dadka Soomaaliyeed mushkiladeena waxa waaye dad aan aqoon u lahayn waxyaabahan ayaa laga la tashanaya macnaha qofkaas marka qofkii sii wareerinaya waqti badan ka dhuminaya ilaa uu gaaro qofkii heer waxba laga qaban waayo. markaas isbitaalada imaadaan qofka markii uu gaaro heer wax laga qaban waayo isbitaalkina hadii qof macnaha dhimar rabo oo tacbaana macnaha wax weyn lama qaban karo. Ugu dambeyntii hooyo Maka oo aad wajigeeda ka dareemi kartid sida ay uga raysatay rarkii caloosha iyo kaarkii badnaa ayaa u mahad celisay dhaqaatiirta Muqdisho City Hospital waxayna sheegtay in ay dareemayso caafimaad ay weyday muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo faraxsan caafimaad qabta oo uu alle ka fayday kurbadii iyo culayskii hayay ayay qoyskeeda dib ula midoobi doontaa. Maama Maka Aadan Maxamed oo muddo 2 sano ah la aadaaraysay xanuunka buradan waxa ayna xustay in dhowr isbitaal oo ay la xiriirtay looga deyriyay caafimaadkeeda iyo in lagu guuleysan karo qalliinka buradan. insha Allah maanta 3 saac la tagay waa fiicanahay aniga Maka Aadan Maxamed Jallaqan ka imaaday maalintan imaanayne Allah ogsadaan ahaa oo xanuun saayid ayaa ahay oo 3 sano amba 2 sano bar aan la jeefa oo daawadayda jiradayda meel loo aado aan la waayay isbitaal kasta meel kasta daan tagay. Marka alxamdulillah isbitaal City Muqdisho markaan imaaday alxamdulillah dhaqaatiir fiican oo Ilaahay ila kulmiyay saacadee kumbuyuutar la saaray si kasto marka la igu sameeyo buro laga helay oo biyo ku dhex jirto waxa la dhahay qalliin waaye kadibna qalliinka marka la dhahay Allah qala Allah iga soo badbaadiyay ma sha Allah buro weyn oo 7 liit oo maxay dhaankeele iyo barra iyo 2 litir biyo laga soo saaray. Alxamdulillah haddana Ilaahay ila jiro waa fiicanahay caafimaad Ilaahay isii hadda qof lugtaada ku soconaysaan ahay ma sha Allah taqdirkayga deeray iyo taqdirkayga Boolay jiri xasanaad Allah si taqaatirta dhanoo meesha joogto kullu guul Allah si mar walbana ما شاء الله الله أن أمهات علينا إنه إلهي يقول نقصي الحمد لله ما أنت هذا والله فسحر
saac la taagay inaan xaafadda aad anoo nabadeyda qabo qaliin kadib inaan 5 bir kadib soo noqonaa qaliinkeyga lagu guuleystay maasha Allah oo caafimaadkeyga taam u yahay maasha Allah wax weyn baa u dhaxay qof oo kaligeed aan soco karto ma raashin cuna karto ma ahan aan ka galaas bi markaan caawa ku hirahay haddana ilaahay wuxuu i xukminaa 3 waqti cuno aan caadigeyga ahaadan wiil raashin sii raboodo maxamuud soo faysana 5 TV muqdisho waa inaad hubisaa halka aad ku nasanayso inay ku habboon tahay naftaada Ansa Home waa halka aad ka helayso agab heer sare ah waxayna ku haysaa sidka fadhiga smart waa fadhi raaxo dhameystiran fadhiga Dorian waxa uu ka samaysan yahay dun jilicsan iyo mid liinan ah oo aad isku bedelan karto fadhiga Vienna nashqadiisa cajiibkii taabashadiisa jilicsan sariirta Astoria waxay la jaan qaadaysaa dooqa shakhsiga jiifka Ornaldo oo si cajiib ah loogu nashqadeeyay alwaax qolkaaga siinaya muuqaal qurux badan sariirta Simena waxay macno iyo muruud ku kordhinaysaa qolkaaga jiifka kama marna halkaasi fadhiga qadada oo qayb ka qaadanaya bilicda gurigaaga Ansa Home ugu hagaag guri habaysan oo kugu habboon